على مساكيسي وأنا قام هذا علينا كرامة iyo sharafta uu nagu karaameeyay inuu nagu soo casuumo inaanu ka soo qayb galno maanta xafladda caleemasaarka Suldaan Xasan Cabdillaahi Axmed Mire runaataan waxaan ka mid ahaa ragga xalay sabti dhexe Hargeysa ka soo safray si ay uga qayb qaataan maanta caleemasaarkan sababta ugu weyn waxay ahayd shakhsiyadda Xasan Mataan oo aad iyo aad loo tilmaamay rag aad u badan ay ka warameen laba sababood ayuunbaa sababay inaan saddexaadeenaba soo baxno waxa weeyaan kow muhiimadda iyo shakhsiyadda uu leeyahay Xasan laba qiimaha iyo qadarinta agteeda ay ka leeyihiin ardayga maanta gartay inay caleemasaaraan Suldaan Xasan oo aan leeyahay way mudan yihiin inaanu kala soo qayb galno maanta xafladan ay ku caleemasaareen Suldaankii guud sida ay sheegeen Suldaan Xasan Cabdillaahi Axmed Mire hadalku waa xilli dambe dad aad u badanna way hadleen waan u ducaynayaa oo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu Suudaanka ka yeelo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa diintiisa ba anfaca ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u fudayliyo mas'uuliyadda iyo xilka culus ee ay maanta ardaygiisu u doorteen dardaarankan siinayaan waxa weeyaan Xasan maanta in mas'uuliyadda aad u ballaaran ay fuushay waxa laga yaabaa mararka qaar mas'uuliyadda saaran inay ahayd mas'uuliyad cid gaar ah ama organisation gaar ah sida xisbiga kulmiye ka saarnayd gobolkan ama degmadan oo kale laakiin maanta waxaan leeyahay Xasan oo mas'uuliyadda ku fuulaysaa waa mas'uuliyad guud oo loo baahan yahay inaad kaalintaada ka qaadato sida guud ahaan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay guud ahaan iyo dadyoga kale ee aynu nolosha wadaagnay ilaahay biyada iyagana ka abuuray sidii noloshooda horumarkooda iyo noloshoodaba wax weyn aad uga tari lahayd aad baa shakhsiyadda ugaas maxamuud baa aad uga waramay sifihii ugaaskaasi ku tilmaamay Xasan waa sifooyin mudan dadka sifaha la inaynu xilka iyo mas'uuliyadaha aynu u baahanay in la inoo qabto inaynu u dhiibno aniguna waa ku raacsanahay waana la garawsaday Suudaanka waxaan u rajaynayaa in ilaahay u fudaydiyo hawsha ay xilka culus la saaray